in that production. And two things. One acquaints oneself with the knowledge that is already there. Okay? That's what libraries are for. Libraries are repositories for the world that we think we know now. People have done research on it, articles and books have been written about this, and they are in the library for references. So I think the first business of production, intellectual production, is that you acquaint yourself with the knowledge that's already in place. That's why reading is critical, absolutely critical. If you take out most of the people I was referring to today, I was standing on the shoulders of giants. I'm not by myself, I'm a pygmy, intellectually. Very short, pygmy. Like you, I'm good taganahay garbaha, kaga taganahay giants. And some of them I have named, Sa'id is only one of them. Nietzsche is another one of them. And many others. So, the first order of business for intellectual production is get back inside the library and know what others have thought about the great questions, perennial questions that confront all societies all the time. That's important. Somalis are very illiterate about that. Just illiterate. waxaan fadhiyaa daani halka iskugu yimaadaan baan fadhiyaa lacagta joornaalka lagu soo saaro waxa ku baxda maalinta ee maxaan ku rahay $13,000 baa sanadkii ku baxay. I have created that fund. This is now the 15th year. halka daabaceeda iyo warshadeeda iyo waxaas oo dhan laga kafaala Soomaalidu waxaan ku leeyahay war wax qora aan daabacnay wax qora waxaan ku qosaysaa waxaan ku leeyahay waan qori doonaa laakiin hadda bil copy free isoo copy free isoo hadda wallahi waxaan waaweyn oo shaqaysta dumar waaweyn oo shaqaysta what think what $25 a year what is that 20 pounds or so a year 15 now yeah $18 kolka waxa lama akhriyo ama lama akhriyo to be honest with you the culture Somali culture doesn't read and it is even worse traditionally in writing. And you can see them in the libraries. My sister was right. Domination by non-Somalis. Why? Because the Somalis are not in the field. They are not in the terrain of engagement, as Antonio Gramsci will call it. Yeah, so that's the point. Production, the first. The second point about production is that you create new knowledge. One, you familiarize yourself with others have thought. And you will never finish that. I mean, that will take 10,000 lives. Just go to the British Library and you will see it. So that's what. But the other one, you have to create. I think do research on Abu Talib Sokor. فنان بحو سوكر بيا أم بلحم بو سوكر بيا أم بحس بو سوكر بيا أم بقلب بو سوكر بيا أم برواية بو سوكر بيا. They are creators. Intellectuals, therefore, they are intellectuals when they create. If they don't write and they don't read, what degrees to do? There's nothing there. What degrees? We are طبيعي حضارة كل شيء يستوي شهادات كل قطعة في زمن تصبح حضارة يفهم ولا غير. Then you can do it. Like you are not in production. So originally, what I want to do in production who are these two levels. At the level of knowing what the world knows as much as you humanly can, and then secondly, doing fresh research, fresh philosophical thinking. You can sit at your desk without even going to the field. I don't mind taking it. I didn't go to the field. I sat in my desk. I have a library downstairs. I can take a basement piece of the law library. I spent $17,000 building that library. Anywhere between 5,000 to 6,000 books a year, reference books. I sat there for 2 months, every maybe 3, 4, 5 hours a day. Think about this, what I'm going to say, so that the IAM will think that I have done some serious work. And here's the production. Now what I have to do is to clean this up, add more, and then publish this. And then present it other places. That's what I meant by production. At the level of knowing what others know as much as possible, you can't know everything but as much. And the deeper you know, the easier it becomes to think about issues. Because you carry with you the wisdom of others. And then you do the research yourself and add something. Hebel baa waxa ku soo daray, abe heblaayay hebel baa ku soo kordhisay waxa halay. Tan waxa lagu qoranayaa wada markaad qorto
لا يقول لي أنت تخاف تقول أنا ما دافع عنك أنا أدار يكون جورنال كان جورنال كان بلدان أرتيكل كمان كان صدره هل كان بيج كان هو ويب سايت كان هو ده بدل كتب بايل بيج ويب سايت عم كان حكي أنا الشرق يلا ما تنجح or from University of Minnesota to Mogadishu University to Amoud University, Hargeisa University, or UNESCO in Paris, Helsinki, Emory University, University of London, University of Otago, University of Montreal, Berlin University, all of these. Why the total board of future. Markaan article kana soo diro dadkaasaan u diraa markaan aqriyaano hadday aad u xun tahay aan ku celinaa wariyada dhegeysta heblow ama heblayo this article is not good here are the reasons halkaa iyo halkaa iyo halkaa iyo halkaa iyo halkaa ka soo hagaaj waqtigaaga intaasan haysta haddiise anigu aan islaam way wanaagsan tahay then I send it to the editorial board 3 or 4 people oo ku idhaahdo you have a month or 2 months akhriya soo critique gareeya and then they will say waa wanaagsan tahay ee hala daado which is not usually the case even the best of us have some improvements or way wanaagsan tahay laakiin halkaa iyo halkaa halaga hagaaji or 3 not good reject these 3 criteria kolkaa production waxaan u jeedaa adiguna aqoon abuur dadka kalena ka baro through reading at the library لأنه إحنا نسوي كوتش وكل هاي الصومالي ويفكر هاي كل هاي لكن كوتش تبغى تيجينا البروفيسورات هو يحط مسألة ضدكم حيدا من بفكر تيجينا سبب إنهم مسار تيجينا أو دخل خاطر مرخا كأي كبكة لكن ماشي نحن كوتش صوصا وضبطي موتاي أما تيجي أما ضبطي متعلمين كها صوصارة وبسطرة مجرى. أما فقول أحسن هاي. وفقول أحسن هاي لكن من يبان خير twisted a little. The qoys were actually what she had started her questions with the family. That's important because that's where البخل قصة بحي والك ويت. And if my parents and grandparents and uncles and aunts were not ambitious for us, who knows? I could be sitting in Gilbey or I'm suffered or the job and I'm suffered in Gilbey. And the whole month. Not the month. What you know how we do. So I think marka they were responsible. You are because what the waruta. لكن بتكلم كنت ما شاء الله. وحوي. أنا واحد طبعا. ولا شيء ضلائي مرقاتي كتر. The same thing with my brother, who is a very fantastic scholar. And others that I know. لكن أنا واحد كان ذكر أنا عبدي وكلام كان ذكر as an example because I know that very intimately. I don't know. واحد قوسنا أنه وركي جامعة برتن كان كجنجي first degree. وريا والصومالي وأنا كبح معنا وريا. أنا كبح معنا. والله مش ساقط يا كبح شو. والله. مريكا من جوني we were in our early 20s وانا كده كل كان يفوق اروح عند الجامعات الصوماليه ولقيت عد لا شيء كيس تي جوانا الانجليزي ولا شيء كيس واحد وجوده وإيريتريان سبب إثيوبيا سبب كينيا بس سودانيس بقى وجوده كل كان واحد لا يعني كده صومالي كده اوكي وكو وأي هذا كده بحضور دل الدنيا كلا كون فرص لكن كانوا واحد على اسمه ويني هذا قول ده هذا ينجح لماذا يبات يحنت يحرم اسمه رجل لكن ما كان وحوجها الشغل يا وحوجها كسبته كل صنعه مثل كل صنعه كي أتاجري كتنا ما كان تاجري كي يروق قاتل إنه أحمد سمتر وحبرتو سيدي الدنيا يوم تبين لك أحمد سمتر نقول شو هذا المادة كوا يسكفر فديني intimidating يا وهنجم هنجم يعني أنت لفت ولا هو هنجم ولما غيسنا سوف يصدق حسب سدام كوا صنعه so that you can then create a momentum among your people لكن ما كهرين أبغى يسوع هذا رجل دور بانو عن كسر الله لكن الدار فريستان ربي هاكي ما غير كي ربما ما أنت نفرديه على أهم مشكلة على الوضع أنا يا رين يا أو ده حاسبك هذي أدوك جبوا جاهل بتصير
سيدي يسوع دوّي وادي عبس أنا سوالي بينهم في حال هاي صار ونمر بينهم بسيطة أنا اللي بيجي قاعدة هي رأيي ولا شيء ولا متحسن لكن سوالي إلى كي درون إلى كي سوق على هذا غير سوق قاعدين يجوا ترى يا أخي إلى كي يجوا أيام سوي شيء كيسن ما تسوق أيوه كيسن فريد هذا الكيمو ما كيمو نضر كهذا marka waxaan ku yidhi yaanu kolka waan joogaa da ya aan waxoogaa iska fasax qabtoon iska hadlada waan joogaa kolka waad garanaysaa wadada waxoogaa license-ka waxoogaa ku siinaysa deena iska ya noo xishoodka iyo inanka ina barnaamijka wixii way dhamaatay dowladda baa xoog waad garanaysaa so I like to tell the truth as much as possible without disrespecting anybody waxaan ku yidhi دور المراد وصل حملة بعد القوى كانوا بالصومالي not individually the cultural was the core and you have touched on وحن قوى كي ده ندخل هو الدرس و ده وحكان ده بتسوى الدرس ويتو ده بكا صومالي ولا إسلامي مدن هو يكتب هذا ده الدرس مدن إسلامي مدن وحبومين بيكتب لكن وحن قوى كانوا بس كده الله إسلام هذا وحسب قوى ده أن وحبة نسكوه قليل شارك كون السخاء يا بكون في هبلاية بس كلام قلت لك هو شارك هو السخاء شغل هو السخاء دوما كنا حاجة دنبها الجوجات وأنا قاعد ده أن وحبة نسكوه قليل ده ما كنا قريب عن كاسة كوجت يا صدق وهذا كيس حتى فنانين تنا ذا كيس والله بني فنانين وين ولا قبضوا فنانين وين كانوا يدسهم كورنا كانوا كلهم بحبة مطمئن كانوا يحمل كراعك يحمل كان كلام تجلس كان كانوا سيكون سياسيين تروا معك والشهادة يرون قاعدين درس في واحد في بول هولدر ما كان مقبول واحد لوريش بي اتش دي ما كانش مرة ده شيء كويس ده بول هولدر أنا واحد ملاك واحد قوي ملاك العنصرية دي تكملوا لما كانت تذكر إسلام تكملوا وشغلوا يعرفها لكن واحد قوي يعني عدها جوجل مثل كاسين سيدا لغوبوها النيني جدا مركز كالصبح أو شهر كالصبح لغوبوها النيني جامعة دي الوحى ويدادوا سنة كان بقولي كنت سنة ودك مريك هو وضن يد 1776 باقوا بالبلد مركز 150 years وحي لم يطلع 350 years يلا أبو الجامعة private university وكوفي أنا هم كسر حي همفري أبو معنا كاهن جري وقت مون هم كسر حي ولي اللي هدين ملو يا بروفيسور بوحنا كمان نظن ديننا كمان لابد الله ما يستسارن بروفيسور بوحنا ديننا كمان ولي جينا على كمان أنا سمعتلهم كلمة كلمة تجويد امتحان كده يا 177 applicants كانوا لما الدين كله قرية وديت واحد مو قرية دي جرايد ودي شغل عين كاسة جبتها والناشونال سيرش بالي يمكن الوكالة الصناعية ناشونال سيرش بريك روح بقول يتدوات ما بسوق قلبين بلدين قلبين بلدين أنا جي من جنرالة صدق إديقول لك أو ريتايرمنت قال لي إيه ريتايرمنت جامعة إلى جونز هوبكنز one of the biggest universities in the United States PhD International Affairs كده سوق لا بلا يسوع سوق جهة وصلنا لنا جدا يسوع سوق وننعب وكريستانا وماشي ود شيء ودن كود شيء ده كإسكالة عاد وقت جرنس ده you know the basis of business وكده I won out of 177 في هالدين اللي هي الدين اللي يسبقني يدي تلبري ولا ده الباشا كمان صوت ده قولها إنه حسكوا أقولانه يا لو بهي صاحبي إنه حسكوا أقولانه ولا كان ضمن يسوي عن سومالي كسمين إنجليزي مريكان كمان ناس من وليتاس أيام واحد ما بيجرمش أيام هوس وزن جيدني هذا سيبس
دقن كاسيني يوم ترتمى يوم حسب كل سكول فينا ليبر كي يخسر تبغى حاجة دحيو رسالة ماشي طالع أصلا دقن كله واحد كنت جبته شو واحد سكول أوكرا and that's why they were able to recognize السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن واحد دين كتاعي وفسر كتاعي جامعة نوش كتاعي. هذا وصل واحد سيارتي سومالي لان. واحد تكفي عمود يونيفرسيتي وهرجيز يونيفرسيتي. إن حيسها أيوة برشلونة هي وطاعت. حصي شيء واحد أراد سايكل زيرو سكريبس. ستاندرسكا. iyo ambition hadda ina ka soo baxay bachelor ka soo qaatay Ahmed University ama ama Hargeysa ama Agnes University oo masters ama doctorate jaamacadda adliid ka tahay adigoo eegaya standardska jaamacaddaadana eegaya ma u ogolaan lahayd inuu jaamacadda soo galo ها هي ماي ها هي ماي هدي لو قياس قادنا اليوم sheer level of intelligence هدي لو قياس قادنا اليوم energy and the appetite for ambition هدي لو قياس قادنا اليوم وضع السومالي للباهدة وقبضت level كاس هو وصل هدي تالو حساب قادنا ها ما واحد وجهنا واحد مقادير تتعلم مكان جامعة يعني وجهنا هو دي مما وحوي جامعة جوجو سنة في عرض جوه بحياة وسنة في ما 1 year سنة tuition كوبرا وننتظر هي ماشية لسياحة وحسب وجه just classroom كانت الجرين سيدة laboratory يعني ما سنة في يا وحلا بحياة شن وحلا بحياة لما يصدم كل أوتوما وقفت الدار عنتني يقول لي لسيحني يوحاسون قدرت رومان بول يتويشن وحلا جاحد لي well over $50,000 a year كنت أكون أوتوما ويسنك ماسترز كلها بس منطقة ويرانتا ده نبتعد أقول لكم PhD هذه اللي وضعنا ده واحد لقاها الله يعرف شان لحسن الربع لقاها وكان multiply that and you're 300,000 هي ملازم كده بما تلا وحوي مرتوى تاسوا وده private institution وينارو ما هو واحد دولة دينا ده هذا مع القبائل يد حمد لبع أبو رب وقولي كنت أصلا ده اللي بيجو هارفارد يجي مكالمة برينستون يدور قرن الجامعة هذا مريكا كشغالة سويا كان تكرر لبعضنا كل جفت ماشي وحوي even the best students of Amud, Geisa, Bur'a, Agnes, Golis, in so many places even the best students in the final analysis I think they will win and they will be very good students and they will pass لكن واحد يبقى هي انت لا ايمان وبعدين ماشي اسو كمان ايمانيا وين لكبا وين ما كانت كلاس كيتما لو مسوي لو ورن ما يقرا في الصومالي لانه كي يمد ابو حكيم الصومالي كي يمد ابو حكيم كي يمد كل كاد مقادير عين كاسا كدم بيسه خلص والله مور بتجلسه on your marks get set go يلا بس marka waa in la soo dhisaa basically la soo dhiso dhibaatooyinka caynkaas ayaa yahay laakiin haddii laga hadlayo baahida Somaliland ay u qabto dad mutacalimiin halkaa gaaray and in the end Somaliland iyo Soomaalida kale oo meesha sida quday adduunyada tartanka u kaliya waxa way human capital the wealth of a society horumarti waa human capital أنا أقول واحد تجي دبي بقى for the first time in my life 3 weeks ago first time in my life أنا ما لها متجدية أمريكاس ودوا consumption ودوا حب
وحكلام جميل consumption وحبور يجي وحكشة غيره وأجنبي وحنصار فكذا نقول ولكن الدكتور بقول ما يبتدي ايش هيك انه ما كان سواء نقول بريبا إن بدل الإسكود دي إن تقول دبي ما هي أبو دبي وحلا يدها زايد University. I think it's the oldest university in the United Arab Emirates. Zayed University. وأبو دبي إن دي كمان وكان دور قربان يسوي الجمهور قال يوم مريكا قال بيفتح يتعلم سوبر قال this is like maybe 10-12 years ago. I decided not to because academic freedom then mesh and engineering. You can, as a scholar, you can function. You can do something. Don't check it. Because I'm cool. جامعة لها high source in terms of intellectual production or high source. So I show one of the rest. هذا اللي هو استثماشي إلى في اليوم مسؤولية وين هذا اللي غير الناس. واحد نجي إذا واحد هو سومالي الآن سمعت قرى وحياة حيثنا كل عشان كرتو حيان السبنة أيوة جل كرتو generationally speaking many things have to change جامعة هذا هو integration المستمر إن واحد نقول جامعة هذا اللي سكفوا تيو ما سكفوا تما خدوا بدو يبقى قاصين تاني شنو duplication بدل بجرا too many duplications إلى hosted the way ما curriculum كلا سكم حسابتي إنجليزي وحاسي وردو لكن إذا منهم بكون أحسن at certain things لو تلقى specialization law and politics and administration for example yeah veterinary services for example or medicine or mathematics and computing and science things like that الجامعة دي يدب انت اللي يسكون كانوا الله حبايبيه integration وبصمه وحنا أيوة الأجيال وحنا يمكن الدنيا استعمل السنة كل سوق معلمين تلاصم هي opportunities أما وقت الجدول كل سوق هذا بروفيسور عندنا الرياليات دي بدأ إنه يمادان to kind of give them improvements librarian laboratories all of those are very efficient أنا وهكذا أنت هنا مريكا نصو دريمبا قلت واحد بدل إنه قبسان كرنو سمعنا لنا كده هي here's one point example أنا ما كان statistics كاشيء أنا نحد أنت بقول وردم كل عيادنا وانا واحد لا شيء كيستي تبقى Chamber of Commerce كما تحكي case very bright people I mean really smart and the information كفاية سنا وهي دك كما كانت situation واحد كل واحد ماشي وهو يلين طالع يسوي نفسه دخلت بيزنس على واحد إثيوبيا مياه واحد هاي إمسين حي لسوق ليه budget حيث يسند في imports كسر قانونه or Ethiopian exports into Somalia. فعلى يقولوا هو close to anywhere between $400 to $450 million a year. ما هو دخل دور. You're right. What is this? Yes, man. وحن كل إنتاج حيث مكان what are items. فعلى يبغون كي بشون يسديته. وجاء. وحنا قاعد $300 million a year. هذا وين صحيح $300 million a year. وعن كل أوكي وحين نبغى قرينه وياه. محين نبغى قرينه وياه. يمكن ترى القريان exports كنا وياه. واحد على ما قياسك you can't measure ما بجرى بدي. immeasurable يعني ما بجرى تبدي قياس you can't measure it because it is so small. هل كاسيتش. أنا دكتور يحمل تولي هي عارف ما تغدي يقول يسلا وما بيده يوسخني سيدو يوشقة سعادة الله مسي you know all of this وده بالبرية يسكح ده برا يا سبع لا بقول $1 مليون السنة فيه نقل جالس في لودري توك دي اللي هو بس سبع عشان ما في عشان علم هنا سبع عشان علم هذا ملاك هذا جو جنب just 3-4 days وإنت هم لا بيقول $100 million out of $300 million إذا كلام ما ينبه إذا بس كل كان واحد بضم ورا سؤال شغله ولا أحسنت هو ultimately why did أديه واحد بقدر صداقتي أديه ده مكان
لكن جودها واحدة نبى أوبا أنت هرت إلا ما يدور هذا الشيء صدق ترى شيء كصوص على نفسه ما لأنه تنقل there are big issues حتى اللي قوض هذول الكامبين كلا قوض هذول ضبطوا أي قوض هذلان ولا هو كلا صار ده candidates هذا سنة قطع هبرتي هبلية هبر بحي هبر كان يعاتي سؤال أنا هو ده ولا شيء بره. We'll take another question. Mohammed Ibrahim. Professor, thank you very much for making that journey all the way here. Good. It's just been valuable and contribution. Thank you. Thank you. I want to extend my appreciation to Kate as well. Thank you. And I've asked this question to many people actually, and they haven't even answered close to what I thought might be the answer, but maybe you can convince me. And you talked about Hadran, Tim Ade, Mago, great leaders at the great leaders of their own time. Yes, yes. In their own contribution. Yes. And if you look at the Western context, you also talked about Nish, Edward Said, you talked about Aristotle, Pluto. All their work reflects on the governance or the society that they have today in terms of institutions and in terms of thinking. Yeah. And I just wanted to find out, in our own context, Somali context, what's gone wrong? Because in the context, when you say artists, I see leaders. But for some reason, it doesn't reflect in our own society. Yes. In terms of our institutions, governance, and so on. Yes. So I just wanted to ask, what's gone wrong? Yes, it's a very, very large, important, and extremely difficult question. So I asked seminar I'm honest to God. So I thank you for the difficult question, but it's a very important question, unavoidable question. And I have tried to explain this. I have tried to answer this question in my writings. When I was doing the PhD and I was doing research for fieldwork, dissertation fieldwork, I spent 9.5 months in what used to be called at that time the Somali Democratic Republic. And then all the way to Kismayo, went to the last Horek, 9.5 months there was some other money. Because I was trying to map the economic reality of the Somali people. And I wrote my first book on this, so you can read it. waxaan soo ogaaday, I won't go into a lecture on this, but like waxaan soo ogaaday markii ugu dambeysay I did interviews, waxaan ka qaaday interviews 130 qof oo random soo naqaysta from Mohammed Siad Barre. He was the last person I interviewed him in early 1983. 1 hour and 20 minutes. One I take you of Somali. وأنت هذا السؤال عشان محل حاجات كده. هي كان كل جواب إنه يحب بعض كنا طوبة سواء جوابي. He said that he was the last person, an hour for the president of the country to give a research in 1 hour and 25 minutes. It's a lot of time. SRC, I think 8 or 9 of them. Ahmed Hassan, a whole bunch of them. Yeah, so. halkaas ka soo dhacay gabdhaha booliisooyinka guryaha ka shaqeeya ay 6 of them by interview. Yeah, housekeepers, taxi wadayaasha. I went to Addis, I went to Al-Asfar, I went to so وشديد ما نعرف كلمة واحد social science واحد مركب interview بلا سوقات. so أنت ناكل فدنا إذا ويدي سؤال common enemy قبل بقولي قبل بقولي كلمة وقبضاً يكسر بحردتك. The most stated word or sentence, yeah, وحنا الإنجليزية content analysis. وحنا analyze كلامس. كلمة وبوك يكسر بحردها common كأقوله. The word that's used by most of you becomes very significant. The second question, the second word, third word. كلمة وقبضاً عارف كلام وقبض السنة. Guess what it was? This is early 1983. Guess what it was? وارتوى ولما ويسين كان عين كان يقولها معلم تقوى محاك وراعي قبل الجامعة الدرس القرآن كبير عين كلها فنانين تا عين كلها تاكسي ولا عين كان يقولها and some of the members of the SFC.
we can't do more. So this country needs you need something else. One senior member of this, as you told me, very senior. It's falling off. I was told by someone like this. This is 1982. It's getting 1890 when I went back to do the people. So عشان مركب واحد وين محال كده أنا جو واحد يلاتها قلت الواحد وضع والبا لبا أمورات أيام أنت درس يا أليجا أو foundation إنه خرق الصعبة يبدو or then falls back لبا أمورات بحب أنا بجري لكن two are critical in my stance أنت كيف كلا أبدا mid waxa weeye dadku inay isla garanayaan qowmiyadda waxa la yidhaha ama qarannimada waxa la yidhaha inay isla garanayaan despite their differences boqol qabiil kala ahaada boqol jinsi kala ahaada maraykan waxaanu cid wax isku yihin ma jirto meel walba adduunyada waa laga yimid muslim iyo gaal iyo inta udhaxaysa waa la buuxaa nooc kastaanu leedahay haddana qarannimo ayaa naga dhaxaysa oo constitutionkaasina oo markhaati ka yahay I have to show you this. واحد سبتر أو قبل كلمة يا haddana wuxuu halkan ku sitaa This is the Constitution of the United States. halkaas uu igu jira ya quraanku ma ka yar hooseeyo xogaa quraanku ma gaari kareen laakiin kuma maraykan ma joogi karno haddana kaas albaabada la naga xigan lahaa ya wala naga helin haddana kaas xuquuqdeedu halkaasay ku qorantay very small laakiin halkaasay ku qorantay Obama lama dooran kareen hadduu kaasi aanu jirin hadda baraagad isagoo aabihii shalay Kenya ka yimid kolkaa dadku inay isla ogol yihiin qarannimadu waxay tahay dee qarannimadana waxaa maxaan ku xundhur u ah dadka caqiidada islaamka aynu wadaagna inay dhab tahay oo aynu isla ogol nahay oo aynu meel wada jeedo waan cidna cid khasbi karayn dadka Soomaalika taasi waa kow civic consciousness that's what I was talking about in Egypt waana jiri jirtay adeega taariikhda dee Soomaalidu maaha shalay maaha you go back you can see waxay igu tiri habaryartay caasha hodan u dhawaan dhimata loo naxariista waxay igu tiri I think I said this on TV weligay school maker hooyaday xogaa 4 or 5 years later dumarkii waxay ahayd markaa dee they were in their peak in the early 60s, late 50s, early 60s and we were kids well nice intaan gabadha dumarkii baa la fadhiya oo geedkii hoosta guri caasha waa albax baa ahayd oo she was very quick waxaan ku yidhi habaryar caasha ha bal noo ii waxa baa this is I think 1997 or something like that 98 iwa waxay tii dhegeyso waa dumar aniga iyo habaryaraha iyo hooyada iyo doyda waxay tii 1960 عاشق يلا قلب واحد اللي هرجيسة ولا يجي الله ما بقول ما تجيبك بداتا ودم يلفق ودم ما يجي ما تبرده وكباور كده قبل إلى هرجيسة ما لنا نصوص عندي even هرجيسة was too distant وحنا عاشق نتتصل ما لنا not just هرجيسة يبغى ما يبغى عادي يبغى سومالي يلا عاشق ونقول يلا عاشق وحول برتاسا نوجين وحول بون نوجين عاشق كهذا عاشق و that civic collective consciousness after سيما
that's it consciousness واحد هدي الدوني سان مركا إلى بيبسون ربطان تاريخ السبعة سنين كتان يا واحد إذا عاشق يجي كوكدرن وين القبطة واي واحد مصمر أي واحد الحيستان وما دود وحي على نقل مصمر واحد الحيستان والكوانو كي كوين هذا عاشق ما هو بتاع كشيء أنا وين تجمع سجل المفتدى مكي وكين كلمة عاشق ما كيوس civic consciousness وتسويقه مرجع بعدك راعين تم بس الرسم هذا اللي عنده يمكن هذا انتوا بتعرفون انه هو يسوق الرسم هذا اللي عنده اروح عند الله عاشق السبوان عاشق عالم كماها عالم هو representation والضبط وين انا جرين ميل كوبن انسان بميل داعان كالصعود وين انا جرين الضبط استعلاء جاي والله ابو الكلام وحيكون ريح يسمى مركز طلبات إنه وحوي مركز عاشق أسوق لما هذا ما أقول الكلام كله that's the debate طلبات إنه وحوي تدخل عاشق قاعد جالسين يد الدنيا دي أمة جالسين leadership وهو جان كله أفضل وإلا هلا تيم يا وحاس وهيجن وقرنا يوفي القرينة عاشق أسوق يعني أنت كنا كنتم قيس مركايك كنتم قيس ولا leadership عن كسر لبدا أساس سومالي أنا بس أيقظ مقتل لبدا أساس واحد بدنا كلاجة لكن the two most critical questions for me وحوي لبدا عاشقين واسلا فنانين عاشق وحي أبوران قرن بي أبوران لكن ده فنانين تبى قد يفوت ما قلت هو so the girl is where are they أدرى وقت حتى أنت يسوي الجمل برعن هذا يقول and he will tell you with tears ask him he will tell you with tears عبد الله قرش he will tell you with tears around it حسن شيخ he will tell you with tears and on عاشق سيد الله أبوري دينته قريب من بيك جبت عاشق الاستعلاء قريب من بيك جبت لكن دوائر برطاء ما هم دعوة مطلقاتية ما رابهم ما هدي ما وإلا برطاء دي لكن ما كان حق عدينا الدين تتسايس كنت ما دام وجعين عصب وإلهي لكل إلهي ما عبد كل سدان إلهي جعله مصعب ولا إلهي جعله ذات عبادة واحد تواتوي وجعين إلهي ما كان بركات كيف يضد كي قادي leadership كي هوجان كي قادي ما كان سوى الرسم هذا وعنكوري أبورون ويعني الله يجعلوا بهم كايداس وحوي والعاشق عصب رجل يضمروا ما أبوري كنا والدبعة وما هم دعالي يودع وما هدي صمد ذكي قادي عاشقاس قال قادي كو أبوري ورابيني ميل والبا بو هذي الله سبحانه إلا علايو إلا بدن إلا سيل إلا لو يعدي يطلع حسا جميل عاشقاس leadership كي if you do that وحلا قصوا كمان كنا مركب بابا ما قصوا كمان يجوا الشرف كأيمونين هم بهيل كلام because they will be leading that يجا هرس عون علماء ده يجا هرس عون دليل ده يجا هرس عون هي أساس ولا لذلك لبضع أسأل نومي لبضع أسأل هدينا للسوء علمنا وطاير كينتو قريب دير ذا قريب كل تطوري واحد يقول I know. She's good. She's good. هاي صعب. That's good. في إنجليز كمان نقولوا يميلوا تري إنجليز ما هو هذا يعني سبونا مرتقى هذا إنجليز ما هو هذا إسماعيل. أكيد هو. واي. ويبقى ما نقولوا في الصدق شو ما كتبنا. عشان كذا عيشة عبدالله حلوة وانا
taagan waay leadership yes ninka leadership la yidhaha waa laakiin weeye waana qoladii soo baxaya wanu beeriga wadaay okay waay waan ku fahmay maxaa lagu gartaa muxuu yahay maxaa lagu gartaa waay iyo ku jira dadka Soomaaliga kale laga joogaa Soomaaliland oo aragtay ku raacay ninka kaas wada ma isku السلام عليكم horta dee anigu markii aan wada hadalnay walaashay ayaan waxaa soo gashay meesha in dad aan Soomaaliyihi ay imanayaan waa kow that's important لأن ده إنكم ما شاكيسنا واحد ربنا إنكم أنا شاكيسنا الدنيا ده كلنا لا شاكيسنا at the same time cool so that's one reason non-Somalis would be here and therefore it becomes important for one to speak in English طلبات هدي وده كله جوجو وابلا جران كرا up to a certain point والله جران كرا إنك استو جامعة دو different دي والله جران كرا af Soomaaliga in la barto oo la hayo oo la sii naaxnaaxiyo waa absolutely essential laakiin walaalkii su'aasha significant way weydiiyey midhaha kale ee ku dhex jira aanan taaban waxaa ka mid ah dowladdii maxamed siyaad barre guulaha ay keentay waxaa ka mid ah af Soomaaliga oo la qoro khasaaraha ay keentayna ilaa maanta na haystana waxaa ka mid ah afqalaad aqoontu miya afqalaad aqoontu way tahay hadda baleekad aniga walaalkay noogu yar ayaan Mareykankan iskuulkiibu ka soo baxay inta maxaan ku raay secondarygii Hargeysa ayuu ka soo baxay wuu sitaa certificate-kii jaamacadii buu yangeen soo wadatid waa anaba halkaas oo kale ka soo baxnay waa ku kaadday wuu galay afku u dhacay he couldn't because he had no language capabilities so the garmis af Soomaaliga afafan kale waa inay wada socdaan oo darandoriis kana galayso waa sidii kubadda haddaad lugta aanu bidixdan ka aqaan laakiin midigtana waan ciyaar jiray waxoogaa Soomaaliga waa inay labadaba ka ciyaarta haddii kale luq qura uun waa even Messi will have a problem if he's only using one feet or Zidane so at the garmis kolka taasina waa taas yaan loo deemo la'aan af Ingiriisiga sida biyaha in loo cabo haddii kale adduunyada lama socon karayno waxaad filaysaa inay Chinese-ka iyo Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Swiss-ka iyo Norwegian-ka af Soomaali bartaan ay dhahaan I think af Soomaali man kala hadlayna it's never gonna happen kolka waa inaan baranaa inaku taasna waa tan wixii ku dhaafana waan kugu jecelahay runtaan kugu jecelahay wixii ku dhaafana you have a better I mean she's here kolka caawa amba habeen dambe ya adigu arday noqo dhageyso she will tell you everything way ku gaartay taasi waa taas wallahi man she's good she's very good and team leadership and wax badan baan this is a very serious one and wax badan baan tan ka qoray in badan for 20 years and way qoran tahay calaamadaha lagu garto waan dhigaa seminar baan dhigaa sanadkii mar aan dhigo oo la yidhaaho leadership in global context dadka islaamka taariikhdooda leadershipka sida ay u eegaan oo ibn khaldun oo kaliya dadkaasaan eegnaa ibn khaldun wuxuu ku soo baxay wuxuu joogay waqtigii la arkayay inay xidigtii maxaan ku rahay cadceedii islaamku ay hoos u soo dhacayso oo dadkii leadershipka ahayd ya alwazir ay la laayahay oo deetana ay soo burburayso ayuu joogay halkaasuu ka qoray daal muqaddama iyo buugagiisii calaamooyin lagu garto islaamka saasaan waan darisnaa seminaarka wadamada reer galbeedka oo Machiavelli ugu horeeyo the prince waan darisnaa shiinaha iyo Japanese kuna dhaqankoodu aad isku dheeyay Koreanka iyagana waan darisnaa and then comparison baan sameynaa calaamooyin ba universal jira ta ugu horeysa waxa weeye aqoonyahanku rag iyo dumar that's very important يا إننا نسسينون دي قلوين كينا دي قرار كله دمارت يا إننا نسسينون دي نكو رقية دمار توقعوا رئيسة واحد وي
dadka waddanka ku nool waqtigaa la joogo cimrigaa la joogo waqtiga ku nool dee waa inuu qofka garaadkiisa iyo aqoontiisu waa inay qofka caadiga ah ka weynta haddii kale ma soconayso de ma soconayso de a blind man or a blind woman leading the blind ain't gonna go waa kow noocyo badan bay taasuna aqoontaasuna leedahay miduun maaha af ingiriis uun maaha noocyo badan bay laakiin qofka garaadkiisa iyo aqoontiisu waa inay ka weyn tahay qofka caadiga ah haddii kale waayo second waxa weeye qofku inuu leeyahay vision aad arkayso waxaan dadka kale aanay arkin waa inaad arkayso you have to see wataan idiin sheegay you have to see what others cannot see oo intaad tagto dhulkaa aanay arkayn aad tagtood soo eegtood soo aragto aad ku soo noqotood tidhaahdo halkaasaynu u guuraynaa sidaynu ugu guuraynaana waa 1 iyo 2 iyo 3 waa kan strategic visionka waa inaad taa keento third waxa weeye waa inaad record leedahay ya record qofku rag iyo dumar waa record inaad leedahay corruption aanu ku jirin mar haddaad corruption ay ku jirto dee iyo dembigal caynkaasi uu ku jiro recordkaaga waa in laga xaarantinimeeyo leadership waayo dee waxaad usoo socotaa waxa weeye dee inaad dhacdo waddanka iyo dadka aad dhacdo soo degan ta ugu dambaysaa madmajta laakiin waan soo koobi ta ugu dambaysaa which is very important especially for Somali people especially for us Somalilanders haddaynu sii wadayno waddada dheer si la sii wadayo qabiil waa in laga taga you have to anuu hargeysa airportkigaan ka idhi markii ugu dambeysay waa dhegaysatay maan filaya airportka markii laygu wareysay tvga laga soo saaray diyaaradda hoosteedii markaan imid waa past December if Somaliland is to live hadday Somaliland sii noolaanayso way sii hilaacayso tribe will have to die qabiil waxa tolnimada ma hada tolnimada ee kadanu reegile baan waan ku dhaatay gebi hada dhageyso reegile baan hayba kuma oran anu nin samaroona reegile baan hayban yaanu ida reegile wala yaqaan dad badan baa tegay I'm a citizen of Gabiley district and I have particular obligations and love for those people haddii qabiilku noolaanayana if the tribe has to live Somaliland has to die dukaanka albaabkiisa hal xidho marka waxa weeye qofku iyo teamka ay wada socdaan leadershipkuna qofun ma waanu team noqda by the way qof kalidii wax ma qaban karo asma Nelson Mandela waxa weeye team laakiin qofka hor socda teamka waa in laga arkaa sidoo ay gabadhaas u dhaqmi jirtay amba ninkaas u dhaqmi jiray iyo sidoo u dhaqmaya maanta iyo wuxuu ku ballan qaadaya intuba inay qabiil ka xalaalaysan yihiin waa in la helaa laakiin haddaan shalay ahaa nin reer hebel ah oo kitaabkayga halkaa igu jiray oo raadkaygii la arkay inaan qabiil ahaa oon maanta carabka dadka usoo laalaaday waa Somaliland baan ahay Somaliland baan ahay halkiin baad ku noqon recordkaagu waa inuu markhaati noqdo anu intaasaan odhan lahaa calaamooyinka ugu waaweynay waxa ugu dambeeyana waxa weeye dee kartidee haddii hawl lagu dhiibo kartideedii inaad karti leedahay aad kaga soo baxdo yeah competence but you can read I'll give you some citations and you can read Firi Abdullahi very good جواز سؤال Somaliland warankaasi kolba oo ka soo noqnoqdaa way soo celceliyeen kowdi which is great haddii lagu tuhmayana waa de waa I feel sense of pride so maadgar laakiin waxa weeye anigu de waataan in badan baan wax ka qoriyay Soomaali war sida hal iyo dhaqaalaheygii baan wax ka qoray siyaasadeedii taariikhdeedii dibadda boga badan baan ka qoray 40-50 articles academic articles waxay markii dambe igu kaliftay la igu yiri samada adigu Ivory Tower jaamacadaas aad ka wadataa iska barwaaqaysan tahay ardayda yar ee wanaagsan ee dhanregsan iyo jaamacadda dhanregsan khalaas kaasaad farta ku soo warday halka marade wadada mara kaalay oo soo dhaadhaco de wadanka wax ka qab cilmigan sheegaysa kaalay keenta gagada macaan kale garoon kubad watan geeyadi I went is bihil qaran la yiraahdo abuurnay waan geeynay shaqadeedii baan iskaga tagay for 2 years
wax badan oo wanaagsan oo dad aan isbaranay ummadii Soomaaliyeed iyo dhalinyaro way jirtaa very good laakiin siyaasadii xamar taalay anu wataan sheegay way quruntay lama cabbi karayo you can drink it kolkaa waxaan isiri bal Somaliland soo eego dadkaasi sida yihiin iyo waxay sheegayaan inay dhab tahay iyo halkay ku socdaan wax badan oo ay deeqaan waan ku arkay Somaliland kolkaa waxa weeye haddaad leediin war Samattarow maxaad haysaa madaxnimaad doonaysaa iyo inaad noo noqoto waddan ka noqoto haddaan taa Soomaalidii kaleba dee u tegay dee tanaaba dee and I have more maxaan ku leeyahay rights here than there okay laakiin waxa weeye Cabdilaahow waxa weeye yeah you can drink it yes waxa weeye laakiin Somaliland qof ma dhaqaajin karayo halkay taagan tahay wax badan baa u ururay oo wanaagsan those have to be preserved haddaan la preserve garayna they will decay dhiig cusub iyo degdeg cusubna waa in la geliya oo dhalinyaradaasi shaqo abuurkooga ugu horreeya kolkaa tiim baa loo baahan yahay marka dee waxa weeye reer Somaliland waxaan ku idhaahaa kolkay yidhaahaan maxaa ku deeqaa qolay dhalinyarihii jaamacadna Samatter intuu nin yar dhalinyaro istaagay very bright guy ayuu yidhi anigu su-aal quran qabaayo waa waxa weeye one word maxaa ku deeqa waxaan ku yidhi I mean I have to really think quickly on my feet waxaan ku yidhi maxaad haysaan so there we go